dareenkan helo markaan kugu arkayo riyooyinkayga dhexdooda ayaa ah kuwa ay ka buuxaan farxad fara badan. inkastoo aan kugu arki karin ama aan kugu heli karin ama aanan kugu maqli karin si dhaba, balse way fiican tahay inaan ogaado keliya inaan riyada kugu heli karo adiga. haddii aad hal maalin ogaato inaan waqti badan kula hadlin, macnaheedu maahan inaan kaa naxin ama aanan kaa murugoonin, balse macnaheedu waxa weeye inaad iska keen riixday oo aad adiga meeshaas iiga tagtay, iguna cidlaysay jacaylka. waxaan ku faanayaa qalbigayga, maxaa yeelay waa lagu ciyaaray, waa la googooyey, waa la qiyaamay, waa la gubay, waa la murjiyey, haddana marna isma dhiibin oo waa uu shaqaynayaa weli. ruuxii u muuqday midaan jilicsanayn ayaa jabaya, ruuxii u muuqday mid adag ayaa kala dhacaya, ruuxii mar walba dhowlcadayn jiray ayaa ooyaya, ruuxii aan marnaba rajo dhigi jirin ayaa rajo dhigaya. waana iska xaalad adduun. murugadeyda ayaa noqotay la qabsi. markii aan murugaysnayn xitaa waxaan dareemayaa inaan ahay mid niyad jabsan. waxaan bilaabay inaan mar walba isku dayo habkii aan ugu soo laaban lahaa nolosheedii hore ee farxadda badneed, balse marnaba iima saamixin inaan farxaddeedii hore dib u hanto.